qiso dhex martay Xajaaj bin Yuusuf oo ahaa amiirkii Ciraaq iyo Shaam, iyo wiil yar oo Ilaahay xikmad iyo cilmi ku manaystay oo ka dhashay qabiilka reer Banu Haashim. Ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee qisada. Qisadani waxay dhex martay Xajaaj bin Yuusuf Athaqafi, oo aad wada garanaysaan, oo amiir ka ahaa dhulka Ciraaq, dowladdii Umayyadeed xilligeedii, iyo wiil yar oo ka dhashay reer Banu Haashim. Xajaaj waxaa abtiyaal u ahaa reer Bani Umayya oo Mucaawiye ka dhashay. wiilkuna waxa uu isir ahaan ka soo jeeday Banu Haashim, oo uu ka soo jeedo Cali bin Abi Taalib. Dagaalna uu ka dhexeeyey labadan qolo ee reer Banu Haashim iyo reer Bani Umayya. Qisadu waxay ku bilaabanaysaa in maalin maalmaha ka mid ah uu Xajaaj bin Yuusuf Athaqafi, oo amiir ka ahaa waddanka Ciraaq, uu u baxay si uu u soo samaysto ugaarsi. Xajaaj markii uu bannaanka magaalada u marayo ayaa waxa uu la kulmay wiil yar oo gacanta ku haya xarig ay sagaal ay ku xiran yihiin. Xajaaj waxa uu soo dul istaagay wiilkii yaraa, waxa uuna weydiiyey su'aal. Waxa uu yidhi, wiil yahow, maxaad samaynaysaa? Wiilkii yaraa inta uu kor u eegay baa waxa uu yidhi, waxaad ii sidaa war aanan ku farxin. Waxa aad igu eegtay indho dadka lagu liido, waxaadna igula hadashay hadal isla weyni ku jirto. Hadalkaagu ruux isla weyn buu u egyahay, caqligaaguna caqli dameer buu u egyahay. Xajaaj waxa uu yidhi, ima garanaysid miyaa? Wiilkii yaraa waxa uu yidhi, wejigaaga madowgiisa ayaan ku gartay markaad hadalka igu bilowday adigoon islaamin. Xajaaj waxa uu yidhi, war hooga sow ma ogid inaan Xajaaj bin Yuusuf ahay? Wiilkii yaraa waxa uu yidhi, Ilaahay gurigaaga ma soo dhoweeyo, martidaadana kuma sooro, hadal badnidaa oo karaama darnidaa. Markii Xajaaj iyo wiilkii yaraa ay intaas isweydaarsadeen, Xajaajna aanu weli hadalkii dhammayn, ayaa waxa u yimid askartii ilaalada u ahayd Xajaaj. Waxayna yidhaahdeen, taliya hadal waan ku maqlaynaaye, na amar waan samaynaynaaye. Xajaaj waxa uu yidhi, wiilkan yar ii qaada oo meel qasrigayga ka mid ah iigu xidha. Hadalkiisu aad buu ii xanuujiyey. Xajaaj ugaarsigii buu iska soo dhammaystay. Markii uu qasrigii ku soo laabtay ayuu yidhi, hallee keeno wiilkii yaraa. Wiilkii baa la keenay qasrigii Xajaaj uu fadhiyey, iyadooy la fadhiyaan qolo mas'uuliyiintiisa ka mid ah. Markii wiilkii soo istaagay goobtii Xajaaj joogay ayuu wiilkii yaraa salaamay oo yidhi, assalaamu calaykum. Laakiin wax salaantii ka qaada ma uusan helin. Markaas ayuu inta hareeraha eegay wiilkii yaraa akhriyey saddexdan aayadood ee macnahoodu noqonayo, meel kasta waxa aad ka dhisaysaan calaamo. Waxa uu aad ula yaabay quruxda guriga uu Xajaaj degan yahay. Warshado ayaad dhisanaysaan sida idinkoo adduunka ku waaraya oo aan dhimanayn. Haddii aad ruux qabataan si aad u xukuntiin, waxa aad qabanaysaan idinkoo xadgudbay oo jabbaarin madax adag ah. Waa fasirka aayado ka mid ah aayadihii uu akhriyey wiilkii yaraa ee la joogay Xajaaj. La soco qaybta labaad ee qisada. Mahadsanid.